رمضان كريم. إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد. عبيدك قد أوسدوا بابه وما لي سواك إله العبيد وما لي سواك إله العبيد. إلهي وخاف تفسير وقلبي ببابك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل. أجر قضايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب. إلهي بمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. afur wanaagsan. soo dhawaada meel kastoo idinka ay joogtaan, gacmo furan kusoo dhawaada. waa walaalkiin cabdicasiis sidaa hore noogu barateen, yani mataqaana waxaa inoo socday qisas min xayaati saxaab, taarikh nololeedkii saxaabada ayaa inoo socdeen oo macnaha ramadaanka soo dirtaan. waxaana jecelnahay insha allah si nadiifa inuu noogu dhammaado. soo sheekeynay dhowr iyo 10 saxaabadood ayaan kasoo sheekeynay. waxaan gabagabo inoo maraayo barty 2 ama 10kii labaad ee asxaabta. waxaa inoogu dhiman 2 saxaabi hadduu ilaahay dhaho. saxaabiga caawa shaashada inoo saaran abudarda andhehe abudar alkhafaar oo loo yaqaano jundun binu judaada, iyo saxaabiga oo mataqaanaa mu-adinkii rasuulka ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh radi allahu canhum, iyo sheekh cabdullaahi umu maktuum ayaa inooga haray oo keliya. wixii ka dambeeya waxaa inoo bilaaban doono 10 saxaabi kale oo xiiso leh insha allah. habeen danbaa markaas 10kaas saxaabi iyagoo yani kooban idinkaga sheekeyn doonaa oo mataqaanaa aan haylaad ahaan idin siin doonaa hadduu ilaahay dhaho. laakiin caawa waxaan qaadanaynaa hadduu ilaahay dhaho saxaabiga jaliilka ah abudar alkhafaar ayaan qaadanaynaa. isaga caawa marka shaashada inoo saaran hadduu ilaahay dhaho. ingaraal noqdo caawa caajis yaraa ahaayo shacaarif, yani afur badanna ma afurkana miska badin, laakiin waa caajisanahay. waxaan rajeynaa insha allah tacaala qisadan inay ikiciso oo mataqaana xamaasad igeliso hadduu ilaahay dhaho. aan isku soo duceyna meel kastoo aad joogtaan, kheyrkana sheer gareeya hadduu ilaahay dhaho. qisadeena ayaan iska galaynaa hadduu ilaahay dhaho. waqti badan iskama dhuminayno. okay, waa lay maqlayaa umaleynaya, si fiicana lay maqlayaa. inta hadeertaan qadka ku jirto si fiicana ii maqlaysana umaleynaya. codkeyga clear waaye, wax shaaca kuma jiro saan jeclahay. hal qof keliya igu filan oo haa idhaho hadduu codkeyga uu okay yahay oo si fiican loo maqlaayo. waa iska bilaabanayna hadduu ilaahay dhaho.
okay ilaa hadda qof oo haa dhahayo ma hayo intaan ka hubsanayaa inaa okay yahay haddii kale hal qof keliya igu filan oo haa idaho hadduu codkeyga oo خلاص بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد إله وحان جعلاده أنيقا صحابة نبيك أيان جعلاده محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب جعل كان أقدرا أيان جعلاده وأعمقه وحيل دير فهبني إيقو هبي يوم الفزع الأكبر مالنتا أرقق حوين هبي فهب لي يوم الفزع الأكبر إله إيقو هبي مالنتا أرقق حوين ماركنو قيامها إنه إيشافعه لأي منهم متكود إنه إيشافعه فإنك تعلم أذي وأكته أني ما أحببتهم وما جعلان إلا فيك أدرت هذا يا جعل هذا يا أرحم الراحمين أبو ذر الغفار صحابي كان عاوة عن كشكين دون نادو إلهي دهو مقعيس وأبو ذر الغفار أبو ذر الغفار وأغان دوننا إن شاء الله ما أقلت القبراء وما أضلت القبراء من رجل أصدق من أبي ذر ما أقلت الغبراء وما أضلت الغبراء من رجل أصدق من أبي ذر محمد رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم آيات دهي dhulka ma xambaaro ma aqallat alghabraa'u dhulka ma xambaaro wamaa adallat alqadaraa'u samadana ma hooseyso yani samadana yani dalad oo kale uma hooseyso min rajulin nin asdaqa ka run badan min abi dhari alghafaar nin ka run badan yani mataqaanaa samadana ma arkino hoosteeda ma joogo yani dhulka korkiisna ma saarno nin ka run badan abi dhari alghafaar rasuulka ayaa dhahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi في وادي ودان واديga ودان la dhahayo الذي يصل مكة بالعالم القارجي ee xariiriya maka caalamka banaanka oo xariiriya maka iyo caalamka kale macnaha magaalada ama tuulada isku xirta oo wadaan la dhahayo kaana tanzilu waxaa degayay markaas qabiilatu ghafaar qabiilka reer bani ghafaar ayaa degayeen qabiilka saxaabiga hadda aan ka sheekeyn doonno qabiilkiisa waayo carabta qabiil ay u degi jireen waagaas iyaga oo litacaaraf si ay isku bartaan ay ahayd ma ahayn oo litaqaatal inay isdildilaan inkastoo jaahiliyadii ay isku duuli jireen oo qabiil isku duuli jireen oo qabiilba qabiilka ku xoog badan wax ka qaadan jiray laakiin markuu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo imaaday waxaasoo dhan waa istaageen fii waadi wadaan magaalada wadaan la dhahayo alladii yasilu maka bilcaalam alqaariji yani caalamka kale yani magaalada macnaha maka meesha isku xereysay ayaa wadaan la dhahaye kaanat tanzilu waxaa degi jirtay qabiilatu ghifaar qabiilka reer bani ghafaar ayaa degnaan jirtay wa kaanat ghifaarun qabiilkaas reer bani ghafaarne taciishu min dalika nusur lyasiiri baabalmandabkaas yar ayay degnaayeen nusur lyasiir waxaa lahaa waa meel yar oo mataqaanaa buurule yani dhinacyaha kale buuraha ka jiraan meel laga mara kale ma lahan waxa waaye wadadii la mari lahaayo oo dhan waa ay degan yihiin wadadii marka loo soo mari lahaa oo maka laga soo gali lahaayo oo loo soo aadi lahaa ama safareedoodii ama macnaha safarkoodii iyo mataqaana badeecadoodii meeshii soo mari lahayd oo dhan waayo meel kale ma jirto allatii tabduluhu laha alghawaafilu waatana marka allatii taasoo tabdulu laha ay u dhiiweysay alghawaafilu safareedii oo ganacsatada ahayd allatii tascaa bitijaarati qurayshin oo hore iyo gadaal ugu soconaysay yani ganacsatadii reer quraysh daahibatan ilaa bilaadi shaami iyagoo oo suuriya iyo dhulkaas u socda shaam u socda o aayibatan minha ama ay kasoo noqonayaan yani meesha ay ka baxayaan oo markay rabaan inay shaam galaan yani meeshay aadi lahaayeen iyo meeshay kasoo noqon lahaayeenba wadadii isku xeraysa waaye wadada oo wadaan la leeyahay wadaan meesha la dhahayo waa meeshaas waaye iyagana reer bani ghafaar meeshayba degan yihiinba
meesha isbaara u taalo isbaara meesha u taalo macnaha warubama caashat min qitaci tariiqi reer bani khafaar waxay ku nooleedba sideedaba waxay ku nooleed jidgoysmo yacni waxayba ahaayeenba dad oo mataqaanaa isbaarooley ah isbaaradaas leeba ku noolaayeenba waxaa waaye waxay baad ka qaadayeen calaa haadihi alqawaafili qawaafilkan oo tijaarada ganacsatadan oo mataqaanaa meesha soo maraysa ay waxay ka qaadayaan lacag baad ida hiya lam tuctihaa maa yurdiihaa wax iida raali gelinaya haddii la siin waayo wax u gudbaayo ma lahan waay magaalada wax u gudbaayo galaayana ma lahan wax kasoo baxayna ma lahan haddii aan lacag iyaga raali ka ahayn la siin waayo qabiilkan oo reer bani khafaar dad oo iyagaba saas ay ahaayeenba oo noloshood dhan waxa waaye yani sidii beeraleyda camal beertood ay falinayeen dhan waxa waaye isbaaradaasay ahayd mafahant wa kaana jundub binu judaada saxaabiga naaneystiisa lahaa almukana lagu naaneysaay yani jundub binu judaada magaciisa oo saxda ah waaye laakiin almukana naaneystiisa waxay ahayd abidar alghafaar naaneystiisa abidar alghafaar ay ahayd laakiin magaciisa oo saxda ah jundub binu junaada allaha waaxidan wuxuu ka mid ahaa isaga marka abidarka hadda aan ka sheekeynayno waaxidan min abnaa'i hadihi alqabiila qabiiladan oo ka dhashayba isaga qabiilkan oo isbaaroleyda ah oo isbaarada u taalo oo ka dhashay laakinahu kaana yamtaazu minhum bijur'ati alqalbi laakiin wuxuu ugu duwanayay asaga waxay ahayd wuxuu ahaay nin qalbi adag bijur'ati alqalbi nin qalbigiis macnaha wuxuu ahaaye dhiiran nin qalbi dhiiran ayuu ahaa macnaha geesi ah ayuu ahaay warajaaxati alcaqli ka caqli badan haddana dadkan uu ka caqli badnaa yani caqlina wuu lahay wa bucdi nadri meel dheerna wuxuu ka arki jiray yani qof meel dheer wax ka arkaayo waaye وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوطان التي يعبدها wuxuu ahaay nin oo aada u dhibsanaya macnaha sanamyadan oo dadkan caabudayaan qoomkiisi oo min duuni illaahi ilaahay duunkiisa ay caabudayaan ilaahay sukadiisa sanamyadan ay caabudayaan ayuu aada uga xumaa macnaha ninkan ujeedi وبأنه كان يضيق yani inkastoo asaga oo ahaay mid aada oo mataqaana qalbigiisa cariiri ku ashad الضيqi qalbigiisa aada waxa cariiri oogu ahaayey بهذه الأوطان صنميدان التي يعبدها أي عابدها قوم قومكيس من دون الله إله دونكيس ويستنكر وحو إنكر جري وآد أوحو ما قلبكيسا ما وجد عليه العرب من فساد الدين سيدا عربت يعني أو دين أفسادين يعني الدين تودي سي أفساد سنتهاي أي طمشادة أي قمرقة أي بلايدة أي لباطة أي كوهايان أمضى وحاسو نو حوا قلبكيس وكراه سنجري ولبسنجري معناه وتفاهة المعتقد يعني نين إلهي عقيدة إيو معناها عقلي إيو وحول بإلهي سيو أصلا الإسلام يا ويلي ما إسلام قال واحد ويتطلع إلى ظهور نبي جديد وحؤاد وفلنجر أو جعلانجر إنه صبح النبي عصب ويملأ على الناس عقولهم ضدك عقل قلناي ضدك عقل علناي نبي أو ضدك عقل علناي إنه الله لا يجعلها وأفئدتهم قلوب توضع عقلك بوحناي oo wayukhrijuhum ka saaraya ayuu aada u jeclaa min adulumaati ila nuuri mugdiga ka saaraya oo iftiinka geenaya wuxuu aada u rabay inuu soo baxo marka nebi oo mataqaanaa caqliga dadkan ku celiyo oo qalbigooda macnaha ee iimaan geliyo oo mugdigan uu ka saaro nuurka geeyo ayuu aada u jeclaan jiray macnaha isagoo oo gaal waay uma abi darin wahuwa fi baadiya uma tanaahat waxaa soo gaartay ilaa abi darin alghafaara waxaa soo gaaray wahuwa fii baadiyatihi asoo baadiyadiisii magaaladii magaaladii hadeertaan aan sheegaynay oo wadaan ay dhahayeen isagoo iska joogo marka baadiyadiisi iska dhex joogo ayaa waxaa soo gaartay akhbaaru nabiy ljadiidi akhbaarkii nebiga ayaa soo gaartay alladii dahara fii maka kasoo baxay nebiga akhbaartiisaa soo gaartay asoo baadiyihiisa iska joogo ya maxaa la dhahay ninaa soo baxay oo nebinimo sheeganayo makau joogaa xaaladiisaas waay waa wixii maqlay dadka ka sheekeynaya faqaala liaqiihi unays walaalkiisa mid oo unays la dhahaya jiro oo walaalkiisa ahe oo wuxuu ku dhahay intaliq laa aban laka aaba ma lihide ya bax ilaa maka aad intaliq bax laa aban laka aaba ma lihide ilaa maka aad وقف على أخبار هذا الرجل سوء نكان الذي يزعم أنه نبي أو شيغنا نبي نمو نكان نبي نمو شيغنا بحث أجو وأنه يأتيه وحي من السماء أو شيغنا إنه أصيو إيمانا وحي أو سمد أو إيمانا وأنه يأتيه وحي من السماء سوء نكان
وأسمع وأسمع شيئا من قوله واحمله إلي wuxuu sheegay soo dhageyso soo maqal ee ii keen aniga ii sheeg waxa asaga uu sheegay ninkaas ii soo dhageyso ii keen bax orod ya ذهب أنيس إلى مكة أنيس بحي مكة وآذي مكة والتقى بالرسول صلوات الله وسلام عليه رسولك ولسوك المي وسمع منه وحوك صوم مقلي مرك رسولك وحك صوم مقلي ثم عاد إلى البادية بادية وكسون نقضي فتلقاه أبو ذر لكل مرك في لهفة يعني جعال إيو متقانا هذي الديلو إيو فرحات أصوه مركة يعني سي فرحات لها وحوك لكل من أبو ذر وسأله عن أخبار النبي الجديد وحوي دي أخبارتي النبي في شغف سي هلو كجرو أبي ذر وحوده هي أخبارتي سي وراها إيها يساي شيخ يا وركي وسوكر عمل فقال حوده لقد رأيت واسو أركورتا والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق هورتا نين أو حواي دبيعة وناكسن تدك أغيارا نين أو دبيعة وناكسن تدك أغيارا نيكاس ويقول كلاما ما هو بالشعر وحونا لها هذا الأو أن قبي إهن هذا الأو حكو هذا قبي إهن قبينا ما أهم هاس فقال له حوده وماذا يقول الناس فيه دتك محي أسكو دهايان دتك أسك محي كو دهايان فقال وحوده يقولون وحي دهايان إنه ساحر واي وكاهن نين كاهن إهواي وشاعر نين شاعر يعني نين كاهن وحالله فاللو واي وشاعر نين أو شاعر واي ليهن معنا نين ساحرو لو واي نين أو معنا تفافلو واي نين أو متقانا أو شاعر إهواي اسك الشعر واي ساسي ليه دتك فقال أبو ذر وحوده والله ما شفيت لي غليلا وح أني أونك أني إهاي والله إن أنا إيجا بوكسين وح هذا هذا إيكور ديسابيرات ماله والله ما شفيت لي غليلا يعني وح أني ربي أو أن أجاد ربي وح هذا شيء ماله يعني وح ما لا إيجا بوحي سمجرته يعني يا ما يقنعني معنا ولا قضيت لي حاجة وح سميسي أو حاجة هنا مجرته فهذا عيالي ورعيالك إيه هين كرتانيو حتى أنطلق أنا بحاية فانظر في أمري أنا أرنتي السوق وقانا عيال كان إيه غبان كرتا عيال كان إيه غبو مسؤولية عيال كان إيه غبا أنا صافيرنا أنا لوي كرات سناي فقال مركز حجر نعم ها عيال كان أنا قفلا أسقبح ولكن كن من أهل مكة على حذر ولكن سحوليه هاي مكة ويكعسنت هاي حالة يعني اسكجر اسئلالي يعني اسئلالي هذا هباء ده هاي ماشي مدح يلقى جبنين ولكن كن من أهل مكة على حذر يعني دكتوناش يعني مكة أهل كده يعني دكتوناش كقب اسكي إلالي يعني وتزود وزاد قاطئ أبو ذرنا لنفسي دي سو وزاد قاطئ صحيح وقاطئ وحمل معه خربة ماء صغيرة جرمد يرو بيئن هراء قاطئ واتجه من غده إلى مكة إسلام ما أنتي كلابة بحو آد مكة وآد يريد أصور لقاء النبي إنه لكلمه صلوات الله وسلام عليه والوقوف على خبره بنفسه إنه أسنفتي سوء أقاد حالدان إنه أسيق نفتركيس سوء أقاد أو ماركن لصو جان قادو ربا حالدان إنه أسيق سوكر استاغو ربا بلغ أبو ذر مكة أيا مكة جاري أبو ذر مكة جاري وهو متوجس قيفة من أهلها أسو إسقر قرناي أسو أهل كيت كعبسناي وحو إسك ديقو يعني نين جناعسي أهو نين جناعسته أهو نين إسك عادي أهو يعني وحبك قصنين عمل يا وإسك ديقو يا معنا مفهم مركا بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس أصو مركا إسئلالنا قيفة من أهلها أهل كذا أو أصو كعبسنا يا ماشي أوغار إسخرقرنا فقد تناهت إليه أخبار غضب قريش لآلهتهم وحاسو قارتي مركا إساقا قبركي أما هذا الله وحاسو قاري إله يشود وحناقسيهين iyo inay cadaawayaan watankiilihim inay cadaawayaan bikulli man taxaddathat nafsuhu bikulli man tuxaddithuhu nafsuhu biitbaaci Muhammad
qof alla qofkii nafsadiisa ugu sheekeyso inuu nabi maxamed oo raaco inay cadaabaan ama dhibaato gaarsiiyaan ee mushkilad gaarsiiyaan ay jirdilaan ay diyaar u yihiin arrintaasoo baqle marka lidaa kariha an yas'ala axadan can maxamed wuxuuba ka hadayba ninkan inuu qof weydiiyo dhaho nabi maxamed inteen ka hela maxamed inteen ka hela qof inuu dhaho oo weydiiyo ooba macnaha karaahsanaya marka ma rabo isagoo cabsanaya marka nafsadiisu cabsanaya liannahu maa kaana yadri an yakuna hada almas-uulu maxaa yeelay ma ogo ninka uu weydiinayo min shiicatihi inuu yahay marka yani nin oo nabi maxamed la jiro ma nabi maxamed yani dadkiisi miya am min caduwihi mise cadowgiisi waay asoo kala ogeyn liannahu maa kaana yadri ma oga marka asaga an yakunu hada almas-uulu hadduu qofkan iska warsado oo dhaho maxamed inteen ka helaa hadduu dhaho ma oga marka qofka oo warsanayo ma qofkan min shiicatihi rasuulka shiicadiis dadka raacsan oo taabacsan miya am min caduwihi mise cadowgi waay rasuulka cadowgiis waay ma oga walamaa aqbala leylo haweenkii markuu soo qaabilay idajaca fi lmasjidi masaajidka oo iska seexday habeenkii markuu imaaday masaajidka oo iska seexday yani oo daalan yahay safaroo ku imaaday maanta dhan oo soo lugeynayay yani masaajidka oo iska seexday famara bihi caliyu binu abi aalib radia allahu canhu cali bin abi aalib baa meesha soo maray marka facarafa anahu qariibun sayidina cali wuxuu ogaaday ninkan inuu nin qariib yahay oo magaalada macnaha kooyto ku yahay baciid inuu yahay oo dareemay ninkan inuu baciid yahay facarafa anahu qariibun wuxuu ogaaday ninkan inuu soo golooti yahay faqaala markaasu wuxuu yidhi haluma ilayna ayuha rajul nakeen soo dhawow nakeen naraac iraac aniga soo bax famadaa macahu way israaceen wabaata leylatahu cindahu sayidina cali aa marti qaaday wuu baxay sayidina cali gurigiisa u watay yani mataqaanaa gurigii geeye habeenkii meeshuu ka casheeyey oo seexday wa fi sabaaxi subixii markii la gaaray xamala qirbatahu jelmadiisa hore usoo qaatay wa miswadatahu iyo boorsidiisi yareed oo wato hore usoo qaatay wacaada ila lmasjidi masaajidkii kusoo laabtay abidar alkhafaar masaajidkii kusoo naqday duuna an yas'ala axadu minhuma labadood waa iska cabsanooyin marka saaxibahu can shayin yani an yas'ala axadu minhuma saaxibahu can shay labadood waa iska cabsanooyin kan wuxuu ka cabsanooyaa sayidina cali wuxuu ka cabsanooyaa ninkan inuu dhaho adiga xaaladaada seewaa yaa u socotaa maxaa raadinaysaa inuu dhaho oo hadhow wax xun oo maqlo oo diida ninkan abidarina wuxuu ka cabsanaya sayidina cali haddoo warsado inuu rifaad kale iyo dhibaato kale u imaado marka labadaba waa iska cabsanooyin marka uma qadaa abu dar ayaa markaas qaatay yowmahu athaaniya maalintiisa labaad duuna an yatacarafa ila nabiyi nebigana ma ogaan maalinta labaad oo maka joogaa nebigana weli ma ogaanin falamaa amsaa markuu galabaystay oo galabtii qoraxda dhici rabto aqada madjacahu min almasjid masjidkii oo masjid maka ayuu boos oo ka samaysta isaga booskaasoo xaaqday meeshii oo rabaa inuu seexdo haddana famara caliyun radia allahu canhu haddana sayidina cali a meesha soo maray mar labaad faqaala lahu wuxuu ku dhahay amaa aana lirajuli an yacrifa manzilah weli gurigaaga ma gaarin miya weli danta adi aa lahayd ma gaarin miya ma helin miya yani dadka aa raadinaysa weli ma helin miya camal uma istaxabahu macahu weli ma helin o dhahay makeen dhahay marka anaa agtiisa seexanay fabaata cindahu agtiisoo seexday leylatahu athaaniya habeenkii labaad sayidina cali gurigiisoo seexday walam yas'al axadu minhuma saaxibahu can shayin labadooda midkood qof kale qofka wax weydiiye ma jiro labadooda wax iswarsaday male waa lakala cabsanooya falamaa kaanat alleylatu thaalitha habeenkii saddexaad markii la gaaray qaala caliyun lisaaxibih saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay cali alaa tuxaditunii caman uqadimuka ilaa caman alaa tuxaditunii camaa aqdamaka ilaa maka ma iga sheekeynaysid miyaa waxa maka soo geliyey dabeecadda aslan carabta waktigaas oo quraysh maka joogtay saasay ahayd hadduu marti soo galaan calaa tuul martida mala dhadhex galo mala la wareysto su-aalo mala weydiiyo yani xawaashiis mala wareysto waa la marti sooraa waa la fadhiisinaa waktiyo qaadanaa yani maalinta saddexaad lea laga yaabaa in la weydiiyo o dhaho hayy see xaaladaa ahayd intay u socotay maxaa ku keenay waxaas in la weydiiyo alaa tuxaditunii ma iga sheekeynaysid miyaa camaa aqdamaka ilaa maka maka wixii kaa oo kusoo geliyay ma iga sheekeynaysid miyaa faqaala abu dar wuxuu yidhi in actaytanii miitaaqan an turshidnii ilaa maa atlub facalt in actaytanii miitaaqan haddaa isiisid ballan adag an tarshudnii inaa itusaysid ilaa maa atlub waxa ani aan raba haddaa adi isha ii saaraysid aniga aa itusaysid oo ballantaas iga qaadaysid facaltu waa kuu sheegaa fa actaahu caliyun
caliyaa ballantii qaaday maa araada min miithaaqin dheh ballantii ninkan oo rabay ballan le ma ahaa waa ballan waayo dhahay waxa adi aarabtiida kuu sameynaya wax alla waxay ahaadaan oo kuu sameynayo yidhi faqaala abu darin wuxuu yidhi laqad qasadtu maka waxaan usoo galay yani laqad qasadtu maka waxaan oogu imid min amaakinin baciida meel fog ayaa maka oogu imidow dhahay ya meel foga maka oogu imid abtagii liqaa'a anabiyi ljadiidi nebiga cusub anoo rab inaan la kulmo nebigan cusub la sheegayo inaan la kulmaan rabaa wa samaaci shay-un mima yaquuluh wuxuu asaga dhahaya inaan wax ka baqlaan rabaa meel fogaana oogu imaadaniyahow fanfarajat asaariiru caliyin radia allaahu canhu fanfarajat asaariiru caliyun radia allaahu canhu cali aad iyo aad ayuu u farxay markii sheekadan oo maqlay oo dhahayo aniga nebigan la sheegayaan rabaa aniga meel dheeraan oogu imid akhbaartiisa inaan ogaadaan rabaa markuu dhahay yani cali wejigiisii mataqaanaa oo kakaduudnaa waa furfurmay wa qaala markaasu wuxuu yidhi wallaahi inahu larasuulu llahi xaqan wallaahi ilaahay rasuulkiisa oo xaq ah waaye wa inahu saan waaye wa inahu saan yani wuxuu bilaabay inuu ka faalooda macnaa wuxuu leeyahay marka wallaahi ninkaan nebi waaye wallaahi nin fiican waaye wallaahi ninkaan macnaha nin ilaahay soo dirsaday waaye yani faalo eber oga baxay marka farxad darteed oo iseen waaye fa idaa asbaxnaa waagii markuu beriyey faatbacnii xayumaa sirtu faatbacnii xayumaa sirtu faidaa asbaxnaa haddaan waan beriisano faatbacnii iraac xayumaa sirtu meesha ani aan aada iraac isoo dabagal adiga fain ra'aytu shay-an aqaafuhu calayka haddaan arko wax adi aan kaaga cabsanayo inay dhib kugu dhacaan ama in lagu fahmo oo kale haddaan kaaga cabsado waqaftu waa istaagaya kaanii ariiqu lmaa inaan kaadinayaan iska dhigayo yidhi wadadaan dhinac istaaga inaan kaadinayaan iska dhigaa ha fa idaa madaytu haddaan socdone fatabicnii isoo raac xataa tadkula ilaa aad kasoo geshid madqalii meesha ani aan galay hadduu baryo isoo raac aniga markaa isoo raacaysidna waxaa iska dhigaya laba qof ani adiga oo war iska heenin ani adi maba is oginba ma isnaqaani ani adi waa isoo daba socone haddii ani aan dareemo in oo qof adi kaa shakisan yahay ama dhib kugu sameyn raba aan arko oo adiga oo indhaha kugu haayo aan arko kalaan iska dhigaayo yiri fa in madaytu haddii ani aan socdone ishaaro siinoya ishaaro siinoya haddii ani aan socdone fatbicnii isoo raac xataa tadkula madqalii meeshaan gale le soo gal bis ثuma yaqiru liabi dar madjaca tiwaala leylatihi shawqa ila ru'yati الnabiy kadib abi dar اlghafaar wuxuu bilaaba marka mataqaanaa habeenkii wuu seexan waaye hilow oo rasuulka oo uu hilowsan yahay iyo inuu la kulmo oo rabaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh haweenkii indhihiisii wax ma maqlaayaan dadkan war ma maqlaayaan ya maclesh telefoon ay dhibaayo ee igraal noqdo maxaan maxay ahayn sorry wuxuu yidhi sayidina cali aaduu u farxay ninkan marku dhahay aniga rasuulkaan raadinooyaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi niyahow ninkaas wallaahi rasuulullahi xaqan waaye yani wuu u faalooday rasuulka u faalooday kadib wuxuu yidhi subaxdii waagi hadduu beryo isoo raac haddaa adi aan arko qof adi aan kaaga cabsanayo inuu dhibaato ku gaarsiiyo wuxuu yidhi inaan kaadinaya iska dhigaya haddaan socdona isoo daba soco ilaa aan ka galo meesha aan ka galayo kadibna abidar ilghafaar habeenkii oo dhan wuu seexan waaye isagoo hilow u qabo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu la kulmo iyo inuu maqlo shay-un oo ilaahay wuxuu u waxyooda ah walahfatan ilaa istimaaci shayin mima yuuxaa bihi ilayh iyo inuu mataqaanaa wuxuu waaye jeceyl iyo hilow oo u qabo wuxuu asaga marka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh loo waxyoonayo waxyigaas inuu maqlo oo dhegiis ku dhacaan wa fi sabaaxi subaxi waagi markuu baryay madaa caliyun bidayfih cali martidiisiiyoo waday oo la baxay sayidina cali martidiisiioo la tagay ilaa beyti rasuuli lkariimi rasuulkii suubanaaye ayuu la aaday gurigiisa
rasuulkii suubanaa gurigiisa hee ayuu la aaday wamadaa abu dhari alghafaari ayaa la tagay waraa'ahu gadaashiisa yakfuuhu wa huwa laa yalwi asoo isqarin gadaal dhan ma fiirinayo marka sorry dadkaan war maqlaya inaan blog saaro leh لم يقر لأبي ذر معها وفي الصباح مضى على بضيفه إلى بيت الرسول الكريم وفي الصباح مضى علي سيدنا علي لبحي بضيفه مرتديس إلى بيت رسول الله الكريم رسولك إلهي أسوبنا قرقيس أيو وضي ومضى أبو ذر وراءه قداشيس وكذب بحي أسكنا يخفوها أسو قرنا وهو لا يلوي أسو لنع فيرنين على شيء أسو لنع نم فيرنين أو ضبق عليه حتى دخل على النبي أقلين فقال أبو ذر وحيري السلام عليك يا رسول الله أبو ذر دهيا السلام عليك يا رسول الله فقال الرسول عليه السلام وحيري وعليك سلام الله ورحمته وبركاته أيو دهيا سكنا فكان أبو ذر وحوها أبو ذر الغفار أول من حيا الرسول بتحية الإسلامي ninkii ugu horeeyey ee rasuulka assalaamu calaykum dhaha ayuu ahaa taxiyat alislaami ninkii ugu horeeyey yani oo salaanta oo ka dhawaajiyo ayuu ahaa assalaamu calayka ya rasuul allah waa ninkii ugu horeeyey oo dhahay waay uma shaacat wacamat bacda dalika kadib assalaamu calaykum caanay noqotaybo shaacat way faafday wacamat bacda dalika caamay noqotay aqbala rasuulu salawaatu llahi wasalaamu calayhi calaa abi darin yadcuuhu ila alislaami rasuulkiia wuxuu bilaabay salawaatu llahi wasalaamu calayhi abi dari inuu islaamka ugu yeero wayaqra'u calayhi alqur'aana qur'aankii uu baraayo famaa labita an aclana kalimata alxaqi isla markii waxaa waye kalimata alxaqi ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna maxameda rasuulullah ayuu yidhi wayadkhulu fi diini ljadiidi diintii cusbeenoo galay wayadkhulu fi diini ljadiidi diintii cusbeenoo galay marka abi dar qabla an yabraxa makaanah meeshiisa asoo ka tegin booskiisa asoo ka dhaqaaqin meesha asaga rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh ku hor fadhiistay ma ka dhaqaaqin fakaana raabica halaathatin kii afaraad saddex kiigooda afaraad oo ahaa raabicu halaatha saddex kiigooda afaraad oo ahaa aslamuu oo islaameen ow qaamisu arbacatin ama afarkood kiisii shanaad ayuu ahaa abidar alghafaar waxaa ka horeeyey saddex lee ka horreysay ama afar lee ka horreysay waxaa laga yaabaa inuu asaga ahay kii afaraa ama kii shanaad inuu ahay hortiis yaa ka horeyn karo waxaa ka horeyn karto khadiija binta rasuulillah ayaa ka horeyn karto umana khadiija waxaa ka horeyn karo cali sayidina cali waxaa ka horeyn karo haddii ilaahay oo ku roon yahay sayidina cali khadiija bintu quweylin سيدنا علي خديجة بنت قويل أبو بكر الصديق يعني إما أسجع كي أفراد ونقنا أما كي شناد ونقنا ما فهم مركا نور قفاض وفركوتريس إلى كوري ولنترك الكلام لأبي ذر أبي ذر أو رافنا شيء كذا ورك شيء كذا أنا عاوضنا محاوى قلد نقطها ولنترك الكلام كلامك أما شيكذا أو ضافنا أبي ذر الغفار أو ضافنا ليقص علينا بنفسه سو أسجى نفسي نوع شيكي بقية قبري شيكذي أنت صهرتي أسجى نوع شيكينا أو ضافنا أبي ذر الغفار ماشي قال وحجر أبي ذر أقمت بعد ذلك مع الرسول رسولك أيال الجوج صلوات الله وسلامه عليه في مكة فعلمني الإسلام إسلام كأبرئ يعني متقانا أركانات كي عليه بري أركان الإسلام أركان الإيمان قرآنك عليه بري انت سودتي وأقرأني شيئا من القرآن شيء قرآن كمد أيو بري ثم قال لي مركز وحيري لا تخبر بإسلامك أحد في مكة قف مكة جوج إسلام لماذا هؤشيجين إن هؤشيج أني أدي أنكو عبسنا أن يقتلوك إني كدلان حلقة يا إني كدلان قف بها أشيجين فإني أخاف عليك أني أدي أنكو عبسنا إيه أن يقتلوك إني كدلان أفكاك الريبني هو فقلت مركزا وحان لها يودهي والذي نفسي بيده نفتي لقعنتي سكجرتان قدارتي لا أبرح مكة كما تقايي حتى آتي المسجد إلا مساجد كأن كتغو
وأسرح بدعوة الحق دين حق إهد أن كسو ظاهريو بين طهراني قريش قريش كركودا أنونا أن قرآن كان كدول آخرين والله إنا مكا كتغين يري فسكت الرسول رسولك يا آمس صلوات الله وسلامه عليه يا فجئت المسجد مساجد كإمادة أبي ذر الغفار أبي ذر الغفار هنا عادي إهن واي مساجد كالإمادة فجئت المسجد مسجد كإمادة وقريش جلوس يتحدثون قريش أو وظف لسو يا عتبة ما لهذا أبو جهل ما لهذا أبو سفيان ما لهذا وكبائر تنوالا وظف ليا فتوسطتهم لحظة كاستاغير لحظة استاغي لحظة فتوسطتهم لحظة يا استاغي قريش لح استاغير وناديت بأعلى صوتي عدكيغ دان أنكر أقاده دا عدكيغ دان أنكر أقاده يا عدكيغ دان أنكر أقاده وحاده يوده يا معشر قريش قريش مكان كلهم كيسيو قريشي إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحان قرايا ويري أنيغا إنا أو إله معبود وحق لغو عابد أوسن جرين إلى إله ما هنا وأن محمد رسول الله نبي محمد رسولك إلهي إنه يهي هرتينا كقراءة ودهان وقنبش لهن فما كانت كلماتي تلامس آذان القوم قوم كان دغهودي ما تابانين بهذا الذي إريدي أني أفكي كصابحين إسلامركي أي مقلين حتى ذعروا جميعا ضمانتت وأرققحين وهبوا ويسو استاغين من مجالسهم فدغودي كسو استاغين وقالوا وحيدهن عليكم بهذا السبي سابق له عليكم بهذا السابق كان دينتيس كبحي قراعة دلا وقاموا إلي إسلامركي وإيسو استاغين وجعلوا يضربونني لأموت وحي قراعوا ينسي عن عادي إهن يعني قراعيس أو إنا ننتق لو تلقى عمل اللي قراعوا ده بق يا حوض على إيه قصوده ولا قراعي ولا شك ولا يا يضربونني لأموت إنا ننتار يا رواني ده يا ده نبي أدير كيس سوق هاري فأدركني وحا سوق هاري العباس بن عبد المطلب نبي أدير كيس عم النبي نبي أدير كيس عباس أيا سوق هاري وأكب علي وأسكوكي دبولي ليحميني منهم سي أو باركنو جوكتود أو إيغاغي إلاليو مركاسو سان أو متقانا أو اسكوكي سو دبولي مركا ثم أقبل عليه مركاسو حيو ورسوغا ورمهيسين سوغا إذنك وقال وحير ويلكم هلاك ألا إذن كردي ويلكم هلاك ألا إذن كردي أتقتلون رجلا من غفار ورموالنتين نين أورير بني غفار إما ديلسين يا أتقتلون رجلا مننا ديلسين أو من غفار يا ورني كان أدلسين متقانين ودهرت ومرر قوافلك وممر قوافلكم عليهم ور ganacsigiini iyo mataqaana safarkiini meesha uu maraayo oo dhan waayo meesha ka imaaday faqla'u anni ya iga dul tago dhawa waalantiina war ninka diloosi mataqaanin ninkii dadkii isbaarada u taalay oo ka dhashay ninkan dadkii isbaarada u taalay oo ka dhashay waa waalantiin wala meesha ganacsigiini uu maraayo dhan waayo ya faqla'u anni wa idafeen markii oo ninkan oo Sidina Abbas uu saas ku dhahay waa iga faqeen Abbas markaas gaal waay rasuulka adeerkiis gaal waay markaas waa iga faqeen oo dhan walamma afaqtu markii waa ninkan macnaha dhulku yaalo macnaha jugtiya macnaha oo ku soo xayba mogtahay walamma awqaftu markii aniga aan yani mataqaana amir aan soo helay oo dhahay waa iska soo baxay jiitu ila rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam فلما رأى بي ما بي رسولك بركو أرك وحا يقول دعي قال وحجري ألم أنهك عن إعلان إسلامك أنا مكده هنا إسلام كاغ هظاهرين إسلام كاغ هشيكشيغني مكده هنا فقلت هاي يا رسول الله كانت حاجة في نفسي قضيتها والله نفتا سيبانت جكتاس نفتا أبانيت وده كستصير نفتا أبانيت حواير يا تأديبي أتا نفتا لو إدبنا وده وحوا وأركن فقال وحوده إلحق قومك أخصر ماشان كتك قومك جار يا وقبرهم وشك بما رأيت وما سمعت وحصو أركتي وحصو مقشب وشك وادعوهم إلى الله إلهي أغير أو إسلامي ذاتك إسلامك أغير لعل الله ينفعهم بك وحلقيها وإن أدرت ضد بدن كسو إسلامانه ويؤجرك فيهم أو إلهي أذيك أجرك عقسي مركا فإذا بلغك هدوك سوغارو أني ظهرت
aniga inaan aan awood yeeshay oo xoog yeeshay oo diinteedii kor noqotay haddaa maqashidna fatacaala ilaya ii imaw markaas la ii imaw intii ka sokaysa ii imaaniniyo orod qaala abu dar wuxuu yidhi fantalaqtu waa iska baxay xataa ataytu manaazila qowmi qoomkeygii guryahoodan gaaro dhahay falaqiyanii aqii walaalkaya ila kulmay uneyskii dhahayen faqaala wuxuu yidhi maa sanacta maxaa soo samaysay ya abadar qultu waxaan dhahay sanactu anii aslamtu ani waa soo islaamuu yidhi wasadaqtu waana soo rumeyey rasuulka famaa labita an sharaxa allahu sadrahu isla markiiba xabadkiisa ilaahay waasico ugu dhigay isagana wuu soo islaamay waqaala wuxuu yidhi maa liya rakbatan can diinika maxaa diintaa ku diidaa aniga fa inii qad aslamtu anigana waa islaamay wasadaqtu aydan yani rasuulkii ilaahayba waa rumeeyo dhahay uma ataynaa ummana hooyadeyna aa u imaano dhahay fadacawnaaha ila lislaami islaamkia ugu yeernay faqaalat waxay tidhi maa liya rakbatun can diinikuma ani diintiina maxaan ku diidaa wa aslamat way islaamtay aydan sidoo kale wa mundu dalika alyowmi maalintaas laga bilaawdo inطalaqat ilusratu lmu'mina muminad usradii ama qoyskii mu'minada ahaaya ayaa u kacday tadcuu ila allahi ilaahay diintiis dadka ugu yeeraya fii khafaarin reer bani khafaar dhexdooda laa takilu can dalika walaa tamullu minhu iyagoo aan ka daaleyn iyagoo aan fadhiisanaynin oo aan daalaynin oo sal dhul dhigaynin xataa aslama min khifaarin reer bani khafaar ilaa ay kasoo islaamaan khalqun kathiirun khalqi badan wa uqiimat isalaatu fiihim salaadiyaa lagu dhex oogayey wa qaala fariiqu minhum qaar iyaga ka mid a waxay dhaheen nabqii can diinina xataa idaa qadima arasuulu almadiinata aslamnaa qaarkooda waxay dhaheen anaga diinteena iska haysanaynaa ilaa iyo rasuulka oo madiina ka imaanaya markuu madiina imaado ayaa iska islaamaynaa qof xoog lagu leeyahay maleh maashi haye falama qadima arasuulu rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu soo galay almadiinata magaalada madiina aslamuu way islaameen balantii ay qaadeen way oofiyeen oo waxay dhaheen markuu rasuulka madiina imaado anaga iska islaamaynaa way islaameen faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khifaarun gafara allahu laha khifaarun reer bani khafaar gafara allahu lahaa ilaahay ha u dembi dhaafo wa aslamun aslamna reer yani salamaha allahu aslam qabiilka aslam la dhahay abi hureyre qabiilkiis waaye wa aslama aslamna abu hureyre qabiilkiis waaye saalamaha allahu ilaahay ha nabad yeelo maashi aqaama abu darin fii baadiyatih wuxuu iska jooga baadiyadiisa abu dar iska degnaaday khalaas xataa madad badr waxaa dhaaftay beder waa dhaaftay wa uxudun uxudaa dhaaftay wa kandaqun kandaqna waa dhaaftay dagaalkii kandaq ee madiina oo mataqaanaa oo qaswat kandaq la dhihi jiray haddaa xasuusatiin oo mataqaanaa gaashaanbuurtii gaalada isoo biirsanaysiyo yahuudii iyo nasaaradii iyo kulli isoo biirsanayeen oo rabeen inay yani ka taqalusaan rasuulkii iyo asxaabtiisa kandaq dagaaladaasoo dhan waa gudbeen uma qadima cala lmadiinati magaalada madiina uu soo galay wanqataca ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wanqataca ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wasta'danahu fi an yaquuma fii khidmatih wuxuu u go-ay marka rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo u go-ay abi dar alghafaar wasta'danahu wuxuu marka ka idin qaatay fi an yaquuma fii khidmatihi wuxuu dhahay yaa rasuulallah aniga khidmadaad baa wax kala u baahnaa malaha wax kale aan shaqo kale aan qabanayo malaha inaa anig kuu khidmayaa rabaa faadina lahu rasuulka fadalow dhahay haye maashi wanacima bisuxbatihi rasuulka la saaxiibtinimadiisa ku nimcaysta abi dar wasacida bikhidmatih wuxuu ku farxay marka uu adeegistii uu adeegayo wadalla rasuulu llahi salawaatu llahi wasalaamu calayhi yu'athiruhu wayukarimuhu rasuulka aad ay u karaameyn jiray aada ugu doorbidi jiray dadka kale famaa laqiyahu maratan ilaa saafaxa maba la kulmo rasuulka maba jirabo yani inuu la kulmo mar abadar ilaa iyo gacanta isgelin jireen wahasha fii wajhihi wabash yani wahasha fii wajhihi wabasha wejiga isku furi jireen oo isku dhoola cadeyn jireen kulama ay is arkaan isku qosli jireen intay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo u gaaray macnaha ilaahay agtiisa lam yutiq abu darin waa awoodi waaye sabran calaa iqaamati fi lmadiina madiinati lmunawara waa joogi waaye abi dar alghafaar awood u hayo dhahay rasuulka bacda an khalat min sayidiha markay madiina ay sayidkeeda ay faarujisay sayidkeedii yani madiina sayidkeeda hadduusan joogin maxaa laga joogaa madiina dhahay lam yutiq abu darin waa awoodi waaye sabran sabr cala aliqaamati inuu ku sabro inuu joogo fi lmadiinati almunawara magaalada madiina almunawara inuu sii joogo waa awoodi waaye bacda an khalat min sayidiha sayidkeeda markii oo mataqaanaa ay weysay
وأقفرت من هدي مجالسه يعني مجالستيسي مركي أي كفارق دماشي لقواي فرحل إلى بادية الشام وحو أقوري باديه الشام شام اسكدقي وأقام فيها مدة خلافة الصديق وحو اسكدقنا إلا أبو بكر الصديق خلافتيس والفاروق سيدنا عمر رضي الله عنهما لوضب الله كرال نقضوا عنه يا أسقب سيدنا عمر يا أبو بكر أنت إهستين أو wuxuu iska joogay macnaha baadiyihii shaam oo iska joogay wa fii khilaafati cuthmaan bin cafaan cuthmaan bin cafaan khilaafadiisa nazala fi damashqa ayuu soo deg u imaaday fara'aa min iqbaali lmuslimiina cala yani dimashqa joogi maho baadiyihii oo suuriya joogi jiray baadiyihii suuriya oo kasoo tagay dimashqa oo imaaday dimashqa magaalada la dhahayo macruuf waay caan waay ilaa hadda la dhahayo fara'aa wuxuu arkay min iqbaali lmuslimiina muslimiinta say u qaabileen cala dunya adduunyo الدنيا جعل وانغماسهم في الطرف iyo mataqaana baashaal iyo raaxa iyo mataqaana waxay galeen adduunka la galeen ya adduunka isaga raaxaysanoo in ummadii adduunka qaabilayo oo waxba ka maqneen oo ark ma adhalahu wax wareeri waa wareeri nin zaahid oo ahay ninkan adduunyo iyo waxaas shaqo ma ku leeyahay markuu music iyo qamri iyo balaaye iyo dadkii oo mashquulsan oo adduunyo leh ku mashquulsan ganacsi leh salaadii wixii dhan waa laga mashquulay ودفعه إلى الاستنكار ذلك آذوا بسم الله روحان وحودا محي هاي بسم الله فاستدعاه عثمان بن عفان أو يري إلى المدينة مقالة المدينة فقدم إليها وأتقي عثمان بن عفان أيا أو يري أبي ذر الغفار وحال الله كالي إيه ما وأذيه لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم نكان وحو تجي مقالة المدينة مركو أو تجي وحو أركي دتكي رير مدينة إيغان كما دتكي رير دمشق دتكي جوجين أو كلواي نفس التبتي واي أدونكي يا لجعل هذا أدونكي يا لغو مشغولي يعني ما تقانا نين أو عبادة إيو وح أسول جيد مالهن دتكي نوا كلا مشغولة وحب الله دتكي نوع عنانت وردد يوم حايدن كدعي وردد يوم سواي إساقينا دتك واحد بسدي دتكينا واحد بسدين حاني كان تنوغ إمادا لليه أنا تقني أنكا باشارنا فأمره عثمان بانتقالي إلى الزبدة سيدنا عثمان نفتر كيسة وحواي وحوده ورنيو اسكبح أديك مقالة تولده أو زبدة لدهاي وهي قرية صغيرة من قرى المدينة مقالة المدينة أي كمتها مركز زبدة زبدة الله مقالة أو مدينة كمتها أو زبدة لدهاي اسكتك الله بح ماشي اسكتك أدي دت كان آدم إسكين كرتينه ماشي اسكتك بح فرحل إليها مقالة دي اسكتك جوري وأقام فيها بعيدا عن الناس دت كيو كفوجا هذيك الديكرة كل عاية يا ديكرة كل عاية هذيك المكت وأقام فيها بعيدا عن الناس دتك وكفى هذه زاهدا بما في أيديهم وحوك زاهد دتك وحي عنده هذا كجري ومن عرض الدنيا بالبلار كذي يا الدنيا معناها ما تقارنا أنا يعني ما تقارنا النمعة الدنيا قلنا الله يستع يعني سيد الروا لو باشالو إسقنا مستمسكا وحوك دقيها بما كان عليه الرسول وصحباه رسولك سيدو أهاي أصحابتي سيدي أهايين أو كل جنياي أو من آثار الباقية يعني آثارتي أو باقي أهد يا أيو كل جنياي إيمانك يو كل جنياي زاهد نمدي يسوف نمدي يسيدو أهاي كل جنياي هذا كان ضد البحي وابا البحي وأركوين بوحي يكوزوين دخل عليه رجل مالنا نين أيماد ذات مرة فجعل يقلب طرف في بيتي إنه جرج طرطورة مرك دينا جرج أو أبي ذر الغفار وإمادي أبي ذر الغفار جرجسيو إندينا مركا فلم يجد فيه متاعا وح علاب دياله أبي ذر وحدقيه جرج بلاد إيه جرج بلاد أو دقيه وحبيه له وح أوف مفروش لما بقى أهم فقال مركا صحونا يا أبي ذر أين متاعكم ألابتين آو تلو أبو ذر ألابتين آوي فقال أبو ذر وحده لنا بيت هناك أنا قرية حق كلنا يعني الآخرة آخرة وكذا قرية ماشي كلنا يصل إليه صالح متاعنا ألابتين أو في عن ماشي أدرنا وده حق أدرسنا أنا أنت ألاب لما نيجي نروح
macnaha waa sadaqaysnaa wixii ba la helo waa la sadaqaynooya aakhir le loo dirooya ma fahamti xagga u dirsanaa o dhaha waa la xawiloya o dhaha ya fafahima rajulu ninkii wuxuu fahmay muraadahu muraadka uu ka wado wuu fahmay marka ninkan aakhiro u wadaa waa sadaqaystaayo ka wadaa wuu fahmay waqaala lahu wuxuu yidhi walaakin laabudda laka min mataacin maa dumta fi hadihi daar yani addunya laazim adiga meeshaan wax waa uga baahan tahay laaziman wax le u baahan tahay ya inaad laazim wax haysatid waa adduunkan waxaa uga baahan tahay waxa adiga ku noolaatid ku mudmoodid u baahan tahay faajaaba wuxuu yidhi walaakin saaxib almanzili ninka guriga iska leh laa yatrukuna fiihi manuu dhaafa gurigaan ninka iska leh asaga gurigaa manooga tagay ma ogido ya maadaama marka gurigaan oo noogu tegeyn maxaa wax u dhigaynaa xaggaan iska geysayna waxayna yani waa dhimanaynaa anaka waa macnaha ilaahay wuuna dilaa saaxiba hada almanzil yani adduunkan qofka iska leh yani mataqaanaa wana dhaafaya aslan maadaama una dhaafeynin oo xaggaba aan u socono kida xaggaan aa buuxsanayna xaggaa camiranayna u taagan yahay macnaha wabacatha ilayhi amiiru shaami shaam amiirkeeda wuxuu usoo diray 300 dinaarin 300 oo dinaar ah 300 dinaara loo soo diray waqaala lahu waxaa lagu dhahay marka istacin biha calaa qadaa'i xaajatika isaga gudo yani waxyaabaha xaajadaada iyo waxyaabaha u baahan tahay ku gudo oo isticmaala lahay faraddaha ilayhi wuu u celiyey waqaala wuxuu yidhi amaa wajada amiiru shaami shaam amiirkeed ma helin miyaa cabdulaahi oo cabdulaahi ahwan calayhi minii qof ani iga oo maskiinsan oo iga faqiirsan mau soo waaya yani amiir shaam oo cabdulaahi ah nin ani oo mataqaana iga faqiirsan mau soo waayey ya wa fi sanati 32 lilhijra sanadkii oo 32 ee hijriyada sanadkii 32 ee hijriyada ista'harat yadu lmanuuni geeridii ayaa dooratay bilcaabidi zaahidi caabidkii oo zaahidka ahaa oo adduunka ka zuulay oo adduunka aan rabin oo suufiga ahay alladii qaala fiihi rasuulu calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka sala allahu alayh wasalam oo dartiisa u dhahay maa aqalat alqabraa'u wamaa adalat alqadraa'u min rajulin asdaqa min abi dari lghafaar maa aqalat alqabraa'u yacni dhulka ma koryeelin dhulka ma xumbaarin walaa adalat alqadraa'u cirkana ma hooseynin min rajulin nin asdaqa ka run badan min abi dari lghafaari abi dari lghafaar nin ka run badan yani macnaha maba jirabo ninkii rasuulka oo dhahay ayaa geerida dooratay ee abi dari lghafaar oo dhintaa laga wadaa abi dari lghafaar oo dhintay radia allahu canhu allah ka raali noqdo ardaah yani mataqaanaa yani waadqalahu fasiixa jannatih ilaahay jannadiisa allaha geeyo ninkaas ayaa caaw qisadeen ee ahayd aan ka sheekeynayni ninkaas oo zaahidka ah ninkaas oo caabidka ah oo adduunkan iyo shaqo aan ku lahayn oo taaganiyow aniga guri balaadaan ka doorbidaa guri oo mafruush ah oo leeyahay macnaha wax ani aan u baahana ha beeraatee ma lahan lacagtii iyo hantidii iyo mashaarkii loo soo dhiibana wuxuu taagan yahay aniga mataqaanaa qof oo iga mataqaanaa daran hala siiyo isagoo xaaladaas ku jiro wuxuu leeyahay qof ani iga daran hala siiyo aniga waxaas uma baahni ninkaasoo ahaa marka ninka anaga caawa aan ka sheekeynayni oo mataqaanaa cilmi raadiska ahaa oo xaqa raadiska ahaa oo xaqa raadinayey oo nuurka raadinayey oo mugdiga ka leexanayey ninkaas aa ujeediin isagoo ka dhashay qabiil oo xaaladaas ay ku sugnaayeen yani mataqaanaa oo waqtigaas oo jaahiliyada ah yani oo isbaaro dhigan jiri oo dhibaatadaas ku jiri yani ninkaas yani isagana wuxuu ahaaye nin dadkaas yani nin ka duwan oo ahaa yani nin ka duwan oo ahaa waxaasoo dhan qalbigiis kuma jirin dhibaatadaas iyo waxyaabahaas iyo ay sameynayeen isaga shaqo kuma lahayn marka nin noocaas oo ahaa ninka aniga caawo qisada oo macnaha aan haysanay caawo oo shaashada inoo saarneyd abidar alghafaar oo ahaa nin axaadiis badan rasuulka wuxuu ahay nin agjoogiisa oo ahay qaadim uu ahay yani waxyaabo badan aan ka baranaynaa yani waxyaabo badan aan ka baranaynaa qisadiisa aan joogno wax lagu jeedo isan jirin yani mataqaanaa tarafkiisa iyo dhaldhalaalkiisa iyo iftiinkiisa iyo yani waxaasoo dhan buufiska adduunka dhan in layska saaro ya oo mataqaanaa wax lagu jeedo ma lahan wax alla waxaa haysatid ina aakhiradaas u horumarsatid oo gurigaas xaqiiqaha ah inaa camiratid gurigan hadda aad degan tahay oo hadda aad ku jirtid wuxuu leeyahay abidar alghafaar wax lagu jeedo ma lahan ya ninka gurigan iska leh oo adduunka ka wadaaye inta ma noogu tagayo waana wadana marka macnaha maadaama uuna wadanayo
kaasa iska buuxsanayna uu leeyahay. marka sidaas waaye abidar alkhafaar. wax alla wixii anaga aan ka qaladnay min cindinaa, wax alla wixii aan saxnina min cindillaahi ahaadeen. ya marka mataqaanaa halaga raali noqdo, caawo aan caajisaan aan markino qisada aa idinkaga sheekeeyey si caajisa ahayna kuwa ku dhammaatay. haddii ay maanta ay qash idinka naqatay macnaha halaga raali noqdo, haddii okay iska ahaydna waqti kale ka fiican insha allah tacaala. qisadeenni marka oo habeen dambe aan usoo fadhiisan doono oo aan dhegaha u raaricin doono hadduu ilaahay dhaho, oo aan ku raaxaysan doono oo aan dhegaysan doono, waxa waaye cabdullaahi bin ummu maktuum. cabdullaahi bin ummu maktuum waaye. waa nin yani mataqaanaa yani asaga dartiisa 16 aayadood usoo degeen waaye. 16 aayadood ayaa asaga dartiisa ayaa usoo degeen cabdullaahi bin ummu maktuum. ya ma fahamte aayadahaasoo min fawqi 7 samaawaat ayaa mataqaanaa asaga laga soo taageeray. ninkaana ujeedid ya cabdullaahi bin ummu maktuum yani dadkii wuxuu ahaa mataqaanaa ugu horeeyey islaamka soo galay ayuu ahaa. nin iska maskiin ah oo xaaladiis ilaahay ogyahay, oo yani camool ah haddana oo iska camool ah oo dariir ah ya oo indho lahayn. insha allah ada habeen dambaa si fiican uga bogan doonaa haddii ilaahay oo dhaho, hadduu ilaahay nafta maarkina nagu simo, hadduu ilaahay dhaho. inta sabuurada iga soo salaamtay dhammaantiin wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. inta iisoo duceysay sidoo kale oo duceynaa ilaahay idin xafido. ilaahay mataqaanaa ramadaankiisa si kheyr alla nagu gaarsiiyo, cibaadadeena allaha aqbalo. ya waan isku soo duceyno meel kastoo joogtiin sidaa idinka aa u jeceshiin kheyrkaa idin jeclahay. hada wasalaam. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.